إنا لله وإنا إليه راجعون إن مقعي وحوي أحمد صومالي وحن أها كاميرا أوبريتركي أما كاميرامانكي مرحومة هذا عليه وحنا أها قفكي وجودن بيجي مثلا كله ضد أي وضع الشقيان marka muuqaalkan kooban waxaan ugu talagalay oo aan mesela kale ku soo duubay inaan ku sagootiyo ama inaan mesela kale wax aan dareemay inay xaq u leedahay inaan mesela kale aan soo bandhigo ama aan ka sheekeeyo wanaageedii iyo wada shaqaynteeda sidii ahayd iyo bulshada qiimihii wacnaa ay u lahayd xalay ayaan ogaaday geerideeda iyadoo 2 saacadood ilaa 3 saacadood kadib ayaan ogaaday sida ay ummadda Soomaalida oo dhan aanay mesela kale uga leedin ama aanay uga seexan ayaanan xalay anigu Axmed Haanan u leedin marka waxay u kaliftay inaan mesela kale aan soo duubo muuqaalkan si aan uga sheekeeyo waxyaabihii wanaagsanaa ama dhaqamaadkii waawacnaa ee aan hodan ku bartay هذا أصلها waxa ay deganayd Canada kadib waxa ay ku soo noqotay ama ay go'aan gaadhay in ay mesela kale dalka ku soo noqoto Soomaaliya waxa ay degtay Kismaayo waxa ay doonaysay sababta ay u soo degtay ba waxay ahayd inay mesela kale de soo bandhigto ama ay iibiso quruxda iyo dabeecadda iyo dhaqankan wanaagsan ee Soomaalidu ay leedahay halkan yaala iyadoo taa ka duuleysa ayaa waxa ay sameysay inay ka hawlgasho deegaano badan oo ay Soomaalidu leedahay ama ay degto oo ay wax ka soo tabiso waxa ay hodan ila soo hadashay aniga oo maalin Burco jooga kadib waxay ku tiri Axmed waxaan doonayaa inaan mesela kale aan laascaanood ka sameeyo documentary ama vlogs ama mesela kale muuqaal ka duubo marka waxaan doonayaa inaad ii timaado maalin khamiis intii la soo hashiban jimcihii oo yimid dabatana isla gelinkii dambaba hawshii waanu galnay hadii waxaan jeclaa inaan xuso hodan family-geeda oo dhan inta ay mesela kale isugu wada yeedhay iyagoo dibadaha kala duwan jooga Europe iyo Mareykanka iyo meel kasta iyo Canada iyo kala jooga ayay dhamaantood dalka wada keentay oo ay tiri dalka aynu mesela kale horumarkiisa ka shaqeyno taas waxay cadeynaysaa kalgacaylka iyo wanaaga iyo muhibbada ay dalka u haysay waxa markii aan laascaanood isku nimay aan ka hawlgalnay inaan mesela kale documentary sameeyno mesela kale family-gooda oo iskuul meesha ka sameeyay library first library in laascaanood dhamaantiin cidii daawanaysay muuqaaladii ama vlogskii integration TV saddexda qaybood ahaa way dareemi karaan dadka garanaya kalgacaylka ay u lahaysay dalka markii aan mesela kale laascaanood ka shaqeynay aan mesela kale 3 cisho wax baan duubi jirnay 3 cisho waanu edit gareyn jirnay ama waan hagaajin jirnay kadib markaan 3 cisho dhamayno edit gareynta xitaa marmarka qaar waxaan xasuustaa iyadoo oo mesela kale anigoo shaqadii ku jiro dabeetana intaan 8 subaxnimo soo galno dabeetana shaqada aanu ka baxno marka ay tahay 12 habeenimo dabeetana waan daalaa dabeetana waxay dhahdaa iska yaranasan dabeetana waxay dhahdaa may dadkii baa iga sugaya muuqaalo inaan u soo bandhigo marka waxyaabahan dareemi jiray waxa kamid ah waxa ku weynaa bulshadeeda ama dadkeeda oo ay oran jirtay dadkii bay sugaya kama seexanayno dabeetana saan u wadnay waana soo saarnay muuqaaladii waxaan hubaa inaad mala daawateen dhiirigelin bay ahayd oo marmarka aan weydiiyo sababta aad dalkii waxaan mesela kale waxyaabahan hodan oo sameeyay waxay tiri dadkan ayaan doonayaa inaan iib geeyo oo aan caalamka geeyo si mesela kale loo arko waana shay cajiib oo qof bini aadan inuu ka fakaro ay tahay halkii ugu sareysay ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan ku soo koobo muuqaalkan yar ee kooban ee baroortiiqda lagu soo koobi karo wax qabadeedii ama waxyaabihii ay sameysay hal clip laakiin sababtan u sameeyay waxay ahayd inaan dareensanaa ama inaan ahaa dadkii ugu dhadhawaa ee ay hodan soo wada shaqeeyeen dadkana waxa la yiri marka ay ka baxaan ama ay geeriyoodaan wanaagooda ka shaqeeya sababta ay kalifteenata marka laba fariimood kaliya ayaan doonayaa inaan halkan ka diro mid waxa ay tahay bulshadii ku xidhnayd ama dadkii ku xidhnaa iyada hodan way naga wada baxday aniga way iga baxday
bulshada Soomaaliyeed way ka baxday family-geedii way ka baxday caalamka dhan bay ka baxday waana la tabi doonaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in Masar noo kale jannaadkiisa uu ku casuumo iyada iyo sawjkeeda Jaamac Fariid arinta labaad waxa weeyaan doonayaan sheego caruurteedii waxyaabaha ugu dhibta badnaa xalay ka saxanayn waxay ahayd caruurtii ama Masar kale tii xaalkooda sidoo ahaa ama waxa ay dareemi doonaan marka iyagana waxaan doonayaa inaan muuqaal yar ama Masar kale aan fariin yar u diro aan halkan u raaciyo iyagu badankooda af Ingiriisi bay ku hadlaan marka kelmadda aan ku hadlayo waxaan ka dhigi doonaa af Ingiriisi hey guys, it's Ahmed again. As you heard the news, you guys, you didn't just lose your mom. We all lose someone special, someone that's so dear to us. And your mama will be so proud of you today if you're alive, but unfortunately, she's not. And I hope you guys are stay strong, and we love you, we support you, and we're with you. taariikhdii ay hodan ka tagtay waxa laga helayaa YouTube-keeda oo meel ay dhammaan Soomaalida caalamka degan oo dhan ay Masar kale ku kulanto ama ay wax ka daawato hodan dadku Soomaalida waxay u wada ahaayeen dad u wada siman bay ahaayeen waxay tagtay Boorama waxay tagtay Burco waxay tagtay Hargeysa waxay tagtay Kismaayo Muqdisho Nairobi Canada waa tii joogtay wax kasta soo duubaysay marka isirka Soomaalinimada qof uu qaali ku ahaa ayay ahayd waxaan doonayay inaan ku daro taariikhdii ay ka tagtay ama wixii ay Masar kale soo duubtay ama ay intaas oo dhan ku soo jirtay waxa noo qorshaysnaa aniga iyo hodan inaanu tagno meesha la yiraahdo Ceerikaabo kadibna Kismaayo kadibna Muqdisho waxaan isku dayayaa walow aanay iyadii joogin in aan intaan muuqaaladii duubo aan YouTube-keeda ama Integration TV aan idinku soo bandhigo si ay noqoto wayo waxyaabihii ugu dambeeyay ay doonaysay wuxuu ahaa inay Masar kale muuqaaladaas samayso anigoo shaqada ama u hayay mas'uuliyadda u hayay waxaan isku dayayaa haddii waan ku dadaalayaa waxaan isku dayayaa bal inaan hawsha u dhameeyo ummadda bulshada Soomaalida waxaa jira dad badan oo xumaan fidinaya Masar kale muuqaalo ama waxyaabo badan family-gii ay ka baxday marba soo xasuusinaya iyagana waxaan u waaninayaa ama aan leeyahay ixtiraam privacy-ga ama shayga khusuusiyadda la yiraahdo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.